toddoba arrimood raggu way nacaan haddii aad ka mid noqoto haddaba iska jooji dabeecadaasi. waa lagaaga tegi karaa ama si kale wuu kugu nici karaa. gabdho, runta ayaan idin sheegayaa, talooyinkan waa kuwa ay raggu ka siman yihiin. haddii aan rag nahay mana jecelni in nala dhaqamo marxaladahan. waxaan isleeyahay tani way caabin kartaa oo wax badan ayay ka bedeli kartaa habka ay ula dhaqanto qofkeeda. hagaag, hadda waxay u muuqataa inaad diyaar u tahay inaad wax badan ogaato. yaan hadal badan kuugu daalin. Let's go. Number 2, hadalka waa muhiim. dumar badani waxaa ku adkaata hadalka oo waxay tahay inay dhaafi waayaan haye, maya, haa, waayahay, waan samayn. intaasoo keliya maahan hadalka. taasina waxay keentaa in caajis lagugu dareemo. waxaad u baahan tahay inaad waqti geliso hadalkaaga oo aad ku hadasho hadallo saamayn leh. sidoo kale waxaa jira nooc kale oo dumarka ka mid a taasoo ku soo celiya hadalka isla qofka ay la sheekaysanayaan. tusaale ahaan, sidaas inaan sameeyo ayaan jeclaan lahaa. jawaabtooda, sidaas inaad samayso maad rabtaa. tusaale kale, waxaan ka helay shakhsiyadaada. waad ka heshay mahano. tusaale kale, waan kuu xiisay. waad ii xiistay miya? hubaal qofkaasi wuxuu fahmi doonaa inaadan danaynayn, lagana yaabee adiga inaad daacadu tahay. soo iska ilaali marxaladahaas, okay? nabarka 2, been badane. qofna ma jecla in been loo sheego. sowdaad haddii ay jirto caadada been sheegida, iska ilaali, waayo tani waxay keeni kartaa in qofkaasi kaa aamin baxo kuguna dhibsado dabeecadaasi. tusaale, waxaa jirta inaad kala hadashay dhacdo taasoo u muuqan karta in horey uu ogaa isaga. laga yaabee in beentaasi aanu kuu qaban, balse ay marar badani ku soo laalaabtaan. taasina ay keento inuu kugu caajiso, kaa aamin baxo, kaana danaysto. 3, mid mar walba la joogta. hubaal tani waad isweydiisay, laakiin dhabta waxay tahay inay wanaagsan tahay mararka qaar in lagu xiiso, lagu tobo, taasoo qiimahaaga kor u qaadi karta. waxaan ognahay inaysan wanaagsaneyn in qiimahaagu uu hoos aado. wuxuuna ku aadi karaa inaad maanta oo dhan ama maalin walba aad la joogto waqtiba aadan siinayn noloshaada kale. sow kana soo waqtina sii ilaa maalmo. Number 4, isma daryeesho. qof walba wuxuu jecel yahay inuu haysto wax qurux badan, wax udgoon badan. hadduu sawjkaagu yahayna ay muhiim tahay inaad daryeel siiso naftaada, aadana u muuqato mid aad u qurux badan. soo haddii aad saaxiib la tahayna ay wanaagsan tahay markaad kulan la leedahay aad daryeesho muuqaaga iyo xitaa habka socodkaaga, waayo taasi waxay ku siin kartaa maankiisa, qalbigiisa, jacaylkiisa, daryeelkiisa. waxay ku siin kartaa wanaagiisa, dabeecadiisa, dhoolla-cadayntiisa, farxaddiisa. waa tahay, waan filaa inaad ila fahantay. gabdho, igu kalsoonaada. tani waan jecelnahay naloo sameeyo. waxaan ku dareemaynaa inaan nahay qof muhiima, waanan u baahannahay. soo iga qaata qishkaan. 5, dabeecad la'aanta. hagaag, waxaan isleeyahay odaygaaga ama jacaylkaaga ayaa kula kaftamay. soo si kale ayaad u fahantay, waad ka carootay. wuu ku raaligeliyey, laakiin raalli waad noqon weyday. dhowr jeer ayaad qaladaad ku aragtay, ma aadan u dulqaadan. kolkii waad ka jaratay, waad ka aamustay. dulqaadkaaga wuxuu ka yaryahay 10%. waa mid keentaa in faraha lagaa qaado. waa mid keentaa in lagu arko qof aan horey u socon. waa in lagu fahmo qof aan xiriir rabin. sow ma habboona midaan. mana jecla raggu, waayo xanaaqa badan wax buu burburiyaa. dulqaad la'aanta kalsooniduu dilaa. beenta badanna xiriirka ayuu kala geeyaa. Number 6, kala daahida jawaabaha. qofkaaga oo fariimo kuu soo diray ama xitaa ku soo wacay oo aad u weyday jaanis aad ku dhahdo isug, ama aad intaa wacdo aad ku dhihi weyday xoogaa isug, mashquul ayaan ahay. ragga keliya maahan, xitaa adigu ma jeclid in midaan lagugu sameeyo. oo hadduu ku jawaabi waayo markiiba waxbaa dhexdaadu ka guuxaya. soo waa la mid, wax waliba oo aad dareemayso ayuu isna dareemi doonaa. 7, maseer badan. habeen badan ayaa u maleeya haddii jacaylkooda ay u muujiyaan maseer xaddidhaafa uu jeclaanayo, laakiin maseerarka qaar waa mid ku salaysan xaasidnimo iyo caro badan.
ragguna marna ma jeclaystaan hinaaso badan. Waa sax, waad ka hinaasaysaa, waana wax jira hinaasuhu, laakiin hinaasaha xaddhaafka ma keeno jacayl, bal wuxuu sababi karaa kala guur iyo isnacayb. gabdho, waxaan idinkula talin lahaa maseerka xaddhaafka inaad ka yareysaan qofkaaga. haa, waa midda wanaagsan. waxaan rajaynayaa inaad wax naga fahantay. ha ilaabin inaad youtube-ka kusoo birtaan si aad u heshaan muuqaalo badan oo intaa kasii badan. laygtana ku cimaamada, waan ogahay waad samaynaysaan, waan idin aaminsanahay, sidaas ahaada. wixii tala ama mowduucaad xiiseynaysa hoos igu reeb, insha Allah waan kasoo hadli doonaa. waxaynoo balanaa muuqaalkeena xiga. Until nabadgelyo.